guddiyo farsamo oo ka kala socda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta gaaraya Baydhabo si ay uga shiraan muranka doorashada. maamulka degmada Kaaraan oo faahfaahin ka bixiyay isku dhac qasaare sababay oo laba ciidan degmadaasi ku dhex maray xalay. dawladda Soomaaliya oo sheegtay in dhaawac daran uu soo gaaray sargaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dhaawacay gobolka Jubbada Dhexe. maamulada Galmudug iyo Puntland oo iska kaashanaya la dagaalanka dadka waxyaabaha maanka dooriya soo geliya magaalada Gaalkacyo. Puntland oo sheegtay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan ciddii jabida waan laga dhex bilaabayo maleeshiya beeleed dhawaan ku dagaalamay degmada isku shuban ee gobolka Bari. madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynaha Soomaaliland oo tacsi u diray ehlada suldaankii guud ee deegaanada Soomaaliland oo xalay geeriyooday. qodobada dibadda waxaa ugu waaweyn koonfurta Suudaan oo qayb ahaan bixisay lacagtii ay ku heli lahayd inay cod ku yeelato qaramada midoobay iyo Itoobiya oo qiratay in kiisas badan oo kufsi ah oo ka dhacay gobolka Tigray. guddiyo farsamo oo ka socda dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa maanta gaaraya magaalada Baydhabo si ay uga shiraan muranka doorashada hareeyay. Yunis Zuraan Cali warsoosaareen saaka ayaa faahfaahinaya warkan. wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa sheegaya in maanta halkaasi ay gaari doonaan xubno ka kala socda dawladda federaalka gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada xilli khilaaf uu hareeyay arrimaha doorashada Soomaaliya. xubnahan oo ah kuwa guddiyo farsamo ka kooban min laba xubnood oo mid walba ka socdo ayaa la sheegay in halkaas uga furmi doono shir looga hadlayo qodobada la isku hayay saldhigga u ah heshiiskii doorashada ee Sebtembar 17 sanadkii tagay 2020 Muqdisho ay ku gaareen madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka inkastoo uusan dhaqan gelin. kulankan waxaa fududeynaya si dhow la socda xubno ka tirsan beesha caalamka oo maalmihii dambe madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ku cadaadinayay inay xal ka gaaraan khilaafka doorashada ka taagan maadaama waqti cileedka hay'adaha dawladdu u dhamaaday. xubno ka tirsan dawladda ayaa keenin u sheegay in guddiyadan markay isku waafaqaan qodobada la isku hayo iskuna soo fahmaan waxay horkeeni doonaan madaxda dawladda federaalka dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir si kama dambaysta u saxiixaan oo munaasabada saxiixa oo kaliya iskugu imaan doonaan inkastoo dib laga soo sheegi doono goobta la iskugu imaanayo. kulankan ayaa ku soo aaday iyadoo dawladda Soomaaliya ay iclaamisay in shir looga hadlayo arrimaha doorashada qodobada la isku hayo si xal looga gaaro ka dhici doona 15 bishan magaalada Garowe inkastoo maamul goboleedyada qaar guddoonka aqalka sare musharaxiinta ururada bulshada rayidka ay dalbadeen in kulankan madaxweynaha uu iclaamiyo ka dhaca Muqdisho si arrimahan loo soo afjara kana qayb galaan beesha caalamka. 8 bishan waxaa ku ekaa muddo xileedka madaxweyne Farmaajo iyadoo musharaxiinta ay sheegeen in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday kursiga uu ku joogo si inqilaab ah. murankii ugu xooganaa ayaa ka taagan arrimaha doorashada Soomaaliya. maamulka degmada Kaaraan ee gobolkani Banaadir ayaa faahfaahin ka bixiyay isku dhac qasaare sababay oo laba ciidan oo degmadaasi ku dhex maray. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya isku dhac xalay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ku dhex maray askar ka tirsan ciidanka dawladda si gaar ah militariga Soomaaliya. isku dhacaan oo si gaar ah ugu dhacay xaafadda Cali Geedi ayaa la sheegay kadib markii ay kala shakiyeen ciidamada isku dhacay iyadoona wararka soo baxay ay sheegayaan in israsaaseyntan ay dhex martay koox burcad ah iyo ciidamada dawladda balse maamulka degmada Kaaraan ayaa arrintan beeniyay isagoo sheegay in ciidamo kala shakiyay ay falkan ka dambeeyeen welina ay baaritaan wadaan. labada dhinac oo dhex martay israsaaseyn muddo kooban socotay ayaa sababtay qasaaro isku jira dhimasho dhaawac. laba ruux ayaa geeriyooday halka laba kalena ay dhaawacmeen. ciidamada amniga oo gaaray goobta ay wax ka dhaceen ayaa sameeyay baaritaano inkastoo aan la sheegin cidda ay ku soo qabteen. gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud Abshir Kaaraan ayaa keenin ugu warbixiyay arrintan isagoona sheegay in falkan uu dhacay xali welina ay socdaan baaritaano. dacwada xala dhacday way si u dhacdo way waa laba ciidan oo iska hortimaday oo kala shakisay meesha isugu dilay boodyadeedani weli baarisi ku jiraan sidii wax soo dhaceen. wararkana soo gaaray dadka shacabka halkaas ku sugan ay noo sheegeen waxay sheegeen in askari ka tirsan militariga oo xaafadda deganaa uu la kulmay rag burcada oo dadka xaafadda dhac u geysanayay halkaasna israsaaseyn ay ku dhex martay mid uu dilay asagiina la dhaawacay qof dumara. taas maxaa ka jira marka? laba nin oo kala shacab ah ku dhintay labadii midka ay ugu yaalaan oo hadda waxay yaalaan xarumaha baarista
labada nin dabcan waxaan reportka ku helayna waa laba nin oo ka kala tirsan ciidanka xoogga dabcan wax sida ay u dhaceen laakiin ma soo koobi karno oo xaal habeenimo ay dhaceen haddana baaristii aan ku jirnaa marka ay soo gabagabowdana waa in soo siinayna dhacdada sida ay u dhacdo sidaan soo qaadnay habeen madowna way aheeday oo ma kala xaqiiji karna laakiin baaristii haddeeraan ku jirnaa dabcan saacadaha ilaa iyo 9 subaxnimo waa noo soo gabagabay insha Allah waan idin soo wadaagaynaa hadii ilaahay magaalada Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan waxaa inta badan ku dagaalama ciidamo ka wada tirsan dawladda Soomaaliya. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dhaawac daran uu soo gaaray sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo lagu dhaawacay Jubbada Hoose. Cabdistaar Xaaji Cali ayaa faahfaahinaya warkan. warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhaawac halis loo geystay sarkaalkii Al-Shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha ee deegaanada ka tirsan gobolada Jubbooyinka. warbaahinta ku hadasha afka ciidamada qalabka sida ayaa baahisay Sheekh Mustafa Nuur oo ahaa sarkaalkii Al-Shabaab u qaabilsanaa ururinta lacagaha uu dhaawac u geystay mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah. sarkaalka la dhaawacay ayaa la sheegay inuu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo mid ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah kadibna waxaa la sheegay in rasaas lagu furay sarkaalka sida ay sheegtay warbaahinta ciidamada qalabka sida oo soo xiganaysa saraakiisha ciidamada xoogga dalka si gaar ah kuwa danabba. saraakiil ka tirsan kumaandooska danab ayaa sheegay in dhaawaca Mustafa Nuur lagu daweynayo isbitaal ku yaala gudaha magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose. ma jiraan weli wax war oo ka soo baxay dagaalamayaasha Al-Shabaab. marar badan ayaa sidaan oo kale waxa uu khilaaf soo kala dhex galay saraakiisha ugu sarreysa Al-Shabaab iyo ilaaladooda. magaalada Jamaam ee gobolka Jubbada Hoose ayaa haatan waxa gacanta ku haya Al-Shabaab iyadoona halkaasi dhowr mar ay duqeymo ka fuliyeen diyaaradaha Mareykanka kuwaasi oo bartilmaameedsaday saraakiisha iyo dagaalamayaasha ka tirsan Al-Shabaab. maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa iska kaashanaya la dagaalanka dadka waxyaabaha maanka dooriya soo geliya magaalada Gaalkacyo. Maxamed Cabdi Xakiin Xirsi ayaa warkan inoo soo diray. saraakiisha ciidamada amniga maamulada Puntland iyo Galmudug ee ka howlgala gobolka Mudug ayaa sheegay in ay iska kaashanayaan la dagaalanka dadka waxyaabaha maanka dooriya soo geliya magaalada Gaalkacyo iyo degmooyinka ka tirsan gobolkaasi. saraakiisha ayaa sheegay in dadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya ay ka qayb qaataan amni darada ka jirta Gaalkacyo. maamulada gobolka ee labada maamul iyo saraakiisha ciidamada amniga ayaa yeeshay kulan gaar ah oo looga hadlayay arrintan. gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa kulankan ka warbixiyay. shirkaas waxaa looga hadlay sidii dardar loo gelin lahaa laba arrimood. mid ah in laga dagaalamo daraagiska in sida ugu dhaqsaa baan looga hawlgalo. midna wuxuu ah in looga hawlgalo argagixisada sidii looga hortagi lahaa. meelaha la isleeyahay waa ku dhuuman yihiin baaritaan xooggan laga sameeyo. in labada ciidan ee jooga gobolka Mudug ee Puntland iyo Galmudug ay ka wada hawlgalaan. waxaan kaloo ku dhamaysanaa in iskaashi buuxda laga yeesho oo mar walba la wada noqdo update, saacad walba la wada hadlo, la wada hawlgalo, laba tariiqo hawlgalaan, cid kasta oo amniga sugaysa ay hawlgasho. waxaan ka hadalnaa 3 asbuuc la soo dhaafay dhacdooyin dhaca maxaa noo qabsoomay, maxaa naga baasan gobol ahaan. runtii wax naga baasan oo maanta aan leenahay dhibaatadaas ka jirta gobolka ma jirto. aan ahayn waxyaalaha hore oo dhaco geedo oo la kala celinayo maalmahan hawshooda la wado oo dhinac bari ah ayadana aan guul ka gaarayno. haddana wax yar oo dhiman qaarna la celin doono labada dhinacba. runtii magaalada Gaalkacyo ayaa dhowr mar waxay ciidamada amniga ku qabteen waxyaabaha maanka dooriya ee dadka isticmaalayay. maamulka Puntland waxa uu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan cidii jabisa waanta la kala dhex ama laga dhex bilaabay Maleeshiya beeleed dhawaan ku dagaalamay degmada isku shuban ee gobolka Bari. Muscab Maxamed Yuusuf ayaa warkan faahfaahinaya. deegaanka isku shuban ee gobolka Bari ayaa waxaa lagu qabtay shir lagu heshiisiinayo laba beelood oo halkaasi dirir ku dhex martay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo ay maamulka Puntland ay gudi u saartay colaadaha labada beelood. kulankan oo lagu nabadeynayo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka isku shuban ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga maamulka Puntland Cabdisamed Galan, duqa magaalada Boosaaso Cabdisalaam Bashiir, odayaasha iyo waxgaradka labada beelood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmada isku shuban. waran waxa kulan ka hadlay wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisamed Galan waxa uuna ka digay cid walba fashil ka abuurta shirka nabadeynta degmada isku shuban. halkaas ay ku eg tahay ciddii shirka fashilisa oo ka shaqaysa shirka iyo nabadeynta inuu fashilmo
waa la xisaabtamaynaa mana aqbali doono ama nabadoon ha ahaado ama caaqil ha ahaado ama nin garbood kale ha ahaado cid allaale ciddii ay ku caddaato inay qayb ka yihiin shirku inuu fashilmo amnigu fashilmo nabadgelyadu fashilmato colaadu dib u aloosanto waa kula xisaabtamaynaa tallaabo adagna waa ka qaadaynaa dhallinyarada iyo xoogga meeshaa la isugu keenay waxay u baahan yihiin meel kale in lagu jiheeyo deegaankeenna inaynu ku nadiifinno oo ninka inoo diidan nolosha oo inoo diidan horumarka oo inoo diidan dowladnimada inaynu iska qabanno culimmadiina waa fadhidaa diintaa qabta duqa degmada boosaaso ayaa xusay in si hoose loo xaliyo colaadaha u dhexeeya labada beelood ee diriirtu ku dhex martay degmada isku shuban ee gobolka bari waxaan diyaar u nahay wax kasta inaan idinkala qayb qaadano nabaddu meel kastay taal haddii dibi jidho inaadna soo wacdaan markaba aan ka hortagno idiin nimaan tii hadeer dhacday runtii nasiib darray ahayd wax qoran bayna ahayd laakiin wixii dambe inaan ka taxadarno dadku siday ahaayeen la isugu soo celiyo colaatinka la iska daayo walaal baa leeyahay waana rajaynayaa sababtoo dadkaani waa dad qanaaco leh waana laydinku yaqaan inaad nabadda qaadataa colaadaha isku shuban ayaa waxa ay u dhexeeyaan laba beelood waxa ayna bilaabmatay isbuucii hore bilowgiisii iyada oo ay maamulka puntland ay guddi u magacooday si loo xaliyo colaadaha labada beelood madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha maamulka somalilan ayaa tacsi u diray ehelada suldaankii guud ee deegaanada somalilan oo xalay geeriyooday eliyaas cabdi cali ayaa warkan hargeysa ka soo diray allah u naxariistay waxaa magaalada hargeysa ku geeriyooday suldaankii guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed suldaan cabdiqaadir suldaan cabdilaahi oo maalmihii u dambeeyey ku xanuunsanayay gurigiisa suldaanka oo ahaa beelaha ugu facda weyn le islamarkaana sandaladoodu ay dheer tahay ayaa xanuunsanayay 5 bilood oo u dambeeyey iyadoo laga hayay xagga wadnaha madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu suldaanka ku tilmaamay mid door weyn ka soo qaatay nabadeyntii islamarkaana horumarka somalilan ay hadda ku tallaabsatay ay ka ahaa hormuud madaxweyne muuse biixi waxa uu shacabka somalilan ka tacsiiday geerida ku timiday suldaanka guud ee beelaha somalilan suldaan maxamed cabdiqaadir suldaan cabdilaahi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna taasi lamid ah u diray suldaan maxamed cabdiqaadir suldaan cabdilaahi kaasi oo sheegay inuu door ku lahaa horumarinta Soomaaliya iyo sidoo kale sidii dib loogu yeegleeli lahaa Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in door weyn uu ka qaatay shirkii carta ee lagu qabtay 2000 dalka Djibouti madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa sidoo kale tacsi u diray marxuumka eheladii uu ka baxay suldaanku sidoo kale gudoomiyaasha xisbiyada iyo siyaasiyiinta Somaliland ayaa tacsi u diray marxuum suldaan maxamed cabdilqaadir suldaan cabdilaahi kaasi oo maanta lagu aasi doono dugsiga Riis beeru ku leeyahay oo gudaha magaalada Hargeysa ah suldaanka waxaa lagu xasuustaa in muddo dheer uu ahaa suldaanka guud ee beelaha Somaliland kaasi oo in badan ka hadli jiray arrimaha siyaasadda iyo nabadda suldaan maxamed cabdiqaadir ayaa ahaan jiray askari kaasi oo markii dambe noqday suldaanka markii uu dhintay walaalkii oo xilkaasi ahaan jiray geerida suldaanka ayaa deegaanada Somaliland aad looga deeraray iyadoo beesha uu ka soo jeedaana ilaa iyo xalay guddi u saartay in ay soo magacaabaan suldaanka bedeli doona suldaankan dhintay koonfurta Suudaan ayaa qayb ahaan waxa ay bixisay lacagtii ay ku heli lahayd in ay cod ay ku yeelato qaramada midoobay koonfurta Suudaan ayaa la tilmaamayaa inay dib ay u soo ceshanayso xaqii codka ay uga dhiiban lahayd jamciyadda guud ee qaramada midoobay kadib markii qayb ahaan ay bixisay deentii ay qaramada midoobay ay ku lahayd dhinaca kale Iiraan ayaanan wali iyadu iska xalinin wadciga maaliyadeed ee lacagta qaramada midoobay ay ka doonayso afayeen u hadlay jamciyadda qaramada midoobay Bernard Farma ayaa waxa uu sheegay in koonfurta Suudaan ay bixisay lacagtii laga maarmaanka u ahaa in ay ka taqalusto qayb ahaan taa oo suurto gelinaysay inay dib ay u hesho codkii ay ku lahayd qaramada midoobay oo ay weysay bishii Janaayo ee tagtay balse ilaa hadda ma uusan faahfaahin qiimaha rasmiga ay bixisay xukuumadda Juba waxa ay sheegtay $22,804 Mareykanka in ay iyadu ay bixisay taa oo u suurtagelin doonta in ay cod ay ka dhiibato kulamada qaramada midoobay ajandayaasha la soo hordhigayo ugu dambeyntiina Ethiopia waxa ay si rasmi ah u qiratay in kiisas kufsi oo aad u badan uu ka dhacay gobolka Tigray
saraakiisha etoobiyaanka waxa ay sheegeen in tobaneeyo haween iyagu ay la kulmeen kiisas gacanka hadal kufsi ah oo ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga wadankaasi intii lagu guda jiray dagaalkii bishii November ee sanadkii tagay ka dhacay wadankaasi gaar ahaan gobolka Tigray. wasiirka haweenka Ethiopia Filsan Cabdullaahi ayaa barteedii Twitterka waxa ay soo dhigtay in ay hayaan warbixino muujinaya oo ay kooxdoodu ay soo qaadeen in deegaanada gobolka Tigray ay kufsi badan uu ka dhacay ka oo la sheegay in aan indhaha la iska indhatiri karin. goobjoogayaal iyo koox caafimaad iyo sidoo kale shaqaalaha hay-adaha samafalka ayaa waxa ay tilmaameen in ay jiraan kufsi aada u badan oo ka dhacay gobolkaasi tan iyo bilowgii dagaalkii November lagu qaaday gobolka Tigray sanadkii soo dhamaaday. waana markii ugu horeysay arrintaasi loo xaqiijiyo xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia oo ay dowladdu magacawday ayaa waxa ay sheegeen in ay hayaan kiisas 108 dambi oo kufsi ah oo ka dhacay gobolka Tigray labadii bil ee lasoo dhaafay, waxaana inta ugu badan uu ka dhacay gobolka Mekelle ee caasimadda gobolkaasi Tigray.